kulantii habboon idil ahaantiinba daawadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka. halkan waa Raadsan TV. qodobada wararkeena ugu durruna waxaa qayb ka ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo markii ugu horeysay carabka ku dhuftay wixii kala qabsaday ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland dagaalkii ka dhacay Ras Kamboni. macluumaad urursan oo ku kooban guud ahaanba wixii halkaas ka dhacay iyo taliyaha waxa uu ka yiri ayaanu idinla wadaagi doonaa. waxba kale aad wadootaana waxaa ka mid noqonaya Cabdirashiid Janan oo kulan kula qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana waxa uu kala arinsaday xaaladda guud ee dalka iyo guud ahaanba dagaalka ka dhanka Jubbaland ee ka soconayay muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Gedo. waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad kooban oo ay kaga arinsadeen guud ahaanba sida lagu wajahayo xaaladda gobolka Gedo iyo khilaafka kala dhaxeeya dowladda maamulka Jubbaland. macluumaad urursan oo guud ahaanba ku geedaaman xaaladaasi ayaanu idinla wadaagi doonaa. soo dhawaada hadday tahay markaaga kugu horeysay aa soo booqato halkan subscribe noo saar noona la garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. aanu ku hormarno taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dagaalkii dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ku dhex maray gudaha deegaanka Ras Kamboni. dagaalkaasi ayaa la tilmaamaya in uu si faahfaahsan uga hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka gadaal su'aalo dhowr ah oo laga weydiiyey dagaaladii ka dhacay Jubbada Dhexe iyo sidoo kale Jubbada Hoose kuwa kale oo ka dhacay iyaguna gobolka Gedo dhammaantoodba dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa isla markaana uu sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage in dagaalkaasi uu ku dhacay qaab kedisa isla markaana ujeedka ugu muhiimsan ee ciidamada halkaasi looga dejiyay ay ahayd qorsho markaasi guud oo dowladda federaalku ay ka lahayd dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. waxaana uu ku micneeyay in ujeedka ciidamada halkaasi loo geeyay aysan ahayn qorshe duulaan oo markaasi Jubbaland lagu qaadayo. Ras Kambonina ay ciidamadu u tageen inay tahay qorshe istiraatiiji ah oo jubbooyinka ay dowladdu ku doonaysay in deegaanada gacanta Al-Shabaab uga jira guud ahaan ay ku qabsanayso. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay tahay mid ugu horeysay oo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana la xiriira khilaafka kala dhaxeeya maamulka Jubbaland. waxaana taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage uu ka galgashay guud ahaanba qorshaha ku aadan dowladdu in markaasi duulaan ay ku ahayd maamulka Jubbaland iyo dagaalkii lagu jibiyay guud ahaanba ciidamada dowladda ee ka dhacay deegaanka Ras Kamboni. isla markaana ciidamada dowladdu markaasi ay ku qasbanaadeen inay isu dhibaan ciidamada dowladda Kenya isla markaana dhinaca xadka ay maraan. waxaa la tilmaamayaa isla markaana taliyuhu uu hoosta ka xariiqay in wixii halkaasi ka dhacay guud ahaanba aysan ahayn dagaal toos ah isla markaana uu ahaa dagaal hal dhinac ka socday oo dhinaca Jubbaland ay weerareen ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugnaa qorshahooduna ahaa inay la dagaalamaan Al-Shabaab. waxa uu sheegay in marnaba aysan qorshahoodu ahayn inay dagaal la galaan ciidamada Jubbaland oo markaasi qayb ahaan ka tirsan kuwa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay in badaasi ay ahayd mid kadis ku dhacday isla markaana weerar ay ku soo qaadeen ciidamada Jubbaland fariisin ay markaasi ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka gadaalna ciidamada rasaas nool ay u adeegsadeen wixii markaasi ka dambeeyay ay ciidamada isaga baxeen guud ahaanba furmahooda. waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid ay ugu turayeen ciidamada Jubbaland ee markaasi qaybta ka kuwa xoogga dalka. waxaana uu sheegay tallaabadaasi inaysan ahayn mid loo qaateen ahayn. waxaana uu ku tilmaamay inay ahayd nasiib xumo xoogan oo markaasi ciidamada qalabka sida lagu soo weeraray. waxaana uu ku micneeyay inay ahayd weerar bahalnimo isla markaana loo qaateen ahayn. qorshuhu waxa uu ku micneeyay isagu inuusan ahayn weerar markaasi guud ahaanba ciidamada xoogga dalka ay ku doonayeen in markaasi ay kula dagaalamaan ciidamada Jubbaland. qorshaha ciidamada dowladdu ay halkaasi u geysana uu markaasi ku qotomay guud ahaan in lala dagaalo Al-Shabaab. waa tallaabadii ugu horeysay oo dowladdu tallaabadaasi ay uga jawaabayso isla markaana waa markii ugu horeysay oo si faahfaahsan dowladdu ay uga hadasho dagaalkii halkaasi ka dhacay gaar ahaan taliska ciidamada qalabka sida. waxay u muuqanaysaa mar kale in tallaabadaasi dib loo gocanayo wixii ka dhacay guud ahaanba deegaanka Ras Kamboni. markana aanu eegno dhanka iyo gobolka Gedo. taliyaha ciidamada NISA ee maamulka Jubbaland
ee ay magacowday dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Janan ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu kulan kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu kala arrinsaday guud ahaanba xaaladda gobolka Gedo sida lagu wajahayo khilaafaadka kala dhexeeya Jubbaland iyo arrimo faahfaahsan. Bartiisa Facebook ayuu soo dhigay qoraal kooban iyo sawir ay wada galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaana uu ku micneeyay guud ahaanba sawirkan inuu ahaa mid taariikhi ah isla markaana kulan miro dhal ah yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay ka arrinsadeen guud ahaanba gudagelida dhismaha maamulkan Jubbaland iyo xaaladda gobolkaasi Gedo iyo sida lagu wajahayo. Waxaana la aaminsan yahay guud ahaanba in dowladda federaalka Soomaaliya marnaba ay doonayn inay ku laabato xaaladii xasarada ahayd ee gobolka Gedo ka dhacday isla markaana dagaal dhex maray Jubbaland iyo ciidamada dowladdu mar kale aysan maangal ahayn. Dowladdu waxa ay u gogol xaaraysaa guud ahaanba inay abuurto jawi nabdoon oo guud ahaanba ay ku geli karaan dhinacyadu wada hadallo u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana la doonayaa in laga gudbo xaaladan isqabqabsiga ee ka dhaxayso garabyadu. dowladdu waxay doonaysaa in mar kale jawigaasi ay abuurto isla markaana kulamo ay garwadeen ka yihiin dowladaha Kenya iyo Ethiopia uu ka dhaco magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya isla markaana la isku horfariisanayo Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya si looga garnoqo. Waxaana la tilmaamayaa in xaaladaas hadda garabyadu ay ka wada shaqeynayaan. sidoo kale Cabdirashiid Janan waxa uu doonayay isla markaana magaalada Muqdisho uu yimid ay ahayd in guud ahaanba dowladdu ay fududeyso qorshaha dhismaha maamulkan Jubbaland. Hadda waxa la tilmaamayaa in dowladdu horaan ay u yeertay iyadoo gudoomiyaha gobolka Gedo ee Cabdullaahi Shimbir iyo sidoo kale taliyaha NISA ee Jubbaland Cabdirashiid Janan isla markaana waxa ay doonaysay inay kala hadasho xaaladaha guud ee gobolka iyo sida laga yeelayo. Waxaana la tilmaamayaa hadda garabyadu in lagu qanciyay guud ahaanba in ay tahay xaalad mid degan isla markaana ay tahay in lagu qaabilo jawi nabdoon. Waxaana la tilmaamayaa isla markaana ay soo waranayaan ilo ka agdhawaa kulanka dhex maray ee taliyaha ciidamada Jubbaland waa nabad sugidda Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaana ku weelinayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo Cabdullaahi Shimbir waxaana kulanku uu ahaa mid diiradda lagu saarayay guud ahaanba xaaladaha amni ee gobolkaasi Gedo iyo kaalinta ay dowladda ka qaadan karta guud ahaanba horumarinta adeegyada bulshada. Waxaana la tilmaamayaa in dhammaantood ay guul ku soo idlaadeen kulamadaasi. dowladdu ay doonaysaa in guud ahaanba hadda xaaladda iyo jadwalka guud ee Jubbaland ay soo xirto isla markaana ay meel ku ogaato. Waxaana la tilmaamayaa in la doonayo markan in laga dhigo ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Janan in loo magacaabo guud ahaanba wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya halka Fartaag la geynayo safiir ka mid ah safiirada dowladaha deriska la ah dowladda Soomaaliya. Waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi garabyadu ay ku heshiiyeen isla markaana ay isla meel dhigeen walow uusan isagu shaacin haddana ila ka agdhowaa waxa ay tilmaamayaan in ay tallaabadaasi jirto isla markaana dowladda federaalka madaxdeedu gaar ahaan madaxweynaha iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka Jubbaland inay isku soo qaadeen guud ahaanba sida laga yeelayo arrintaasi. Waxaana la tilmaamayaa in dowladdu mar kale ay dagaal doonayn in ay la gasho Jubbaland isla markaana waxay doonaysaa in wada hadal iyo miiska in lagu xalliyo wixii hadda ka dambeeyana guud ahaanba aysan doonayn inay u banbaxdo dagaal ay la gasho Jubbaland. gudaha intaas ayaan ku soo afmarayaa tan iyo kulan dambe nabadeen.